maqashaan odagaaga waa dhintay qaabkee odagaaga waa dhintay ma la maqlo هذا والله بلا سلاح ما قراش من جوجل كرا واتتاولا سؤال هذا كواساش سؤال ما نشك waatahay su'aasha labaad waxa ay leedahay maama indhoolo ah dhagoolada ah ninkeeda safar aaday kadib waa u dhintay صح ninkii la rabaa in loo sheego maamada ninkii inuu dhintay sidee ugu sheegi lahayd والله horta maamada ani ma ilalat يا ميل دلمانو اسوق قابله اسمي كاله ادي لها الى اسك بن مغتا ay waa soo fariistaa dhigana maqaan indhool ma laha okay arinta markaa waxa ay go'laan anagu ugu adagtaa inta ma dhaafin karo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada kulanka kaarshe oo si toos ah uga daawanaysaan channelka AK Studio wuxuu si toos ah kaga imaanaya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kulanka kaarshe waxaad ku daawan doontaan su'aalo aan weydiin doono dadka ku nool magaalada Nairobi su'aalahaasi ayaa waxa kamid ah ugu horreyn qof aad jeceshahay iyo qof adigu ku jecel keebaad noloshiin lahayd su'aasha labaad oo ah maama indhoola ah dhagoolana ah ninkeediina dhintay sidee ugu sheegi lahayd in ninkeedii uu dhintay aan wada eegno jawaabaha ay ka bixinayaan dadka ku nool xaafadda Islii ku soo dhawaada okay ugu horreyn ku soo dhawow kulanka kaarshe waa dhawahay waa maad galab wanaagsan aan ku leenahay magacaaga adigoo codkaaga sare u qaadaya wanaagsan oo aan magacayga waa Aisha okay Aisha waxa jirta su'aalo aan weydiinayno dadyowga ku nool xaafadani Islii su'aashaasi waxa ay u dhacaysaa sida tan laba su'aalood weeye su'aasha koowaad waxa weeye qof ku jecel iyo qof aad jeceshahay keebaa nolosha siin lahayd waxaan siin lahaa qof jecel sababtoo ah qof jecel waligiis ma iga tagay waa jecel yahay Soomaalihan laakiin qof aniga aan jecel kalsooni ma ku qababa maxaa naftaada u diiday marka waxyaabaha ay jeceshahay inaad raadsato aniga qofka jecelka asaga iga keensanaya maadaama isagu ii jecel yahay wax walbana uu ii horeeyo laakiin aniga qof aan jecelahay oo asagana aan wax jecel ii hayn ma daageenba su'aasha labaad waxa ay leedahay qof indhoola ah waa marwo indhoola ah dhagoolana ah indha ma qabto dhagana ma qabto maadaama aysan indha qabin dhagana qabin ninkeedii baa safar ka aaday safarkii uu aaday darteed waa uu dhintay ninkii waxa la rabaa in islaanta loo sheego sidee ugu sheegi lahayd adiga waana indhoole waana dhagoole safaruna ka aaday wuu dhintay haye kadib dhimashadiisii baa la rabaa in loo sheego okay wala saashas ma garanayo isku day haddii aan isku dayo waxba ay keenayaan maskaxiyan hadday ka fikiraan bal adiga sidee qaabkee maadaama lagu wakiishay waa marwo indhoole ah oo dhagoole ah oo ninkeediina dhintay sidee loogu sheegi lahaa markaan متعبين ما قرأنا اسكو دايقو معها عيب وقيب كم إذا جوابته فرها دي لغة الماما حتى ما أركيسة سامة والله ما قرأنا يوم ما مركز الدحاضة سوى استاقوا ما قرأنا يوم بعد ما سنتعي magacayga waa nasteex ku soo dhawo kulanka kaarshe aad baan ugu dhawaay walaal nasteex waxa jirta su'aalooyin aan weydiinayna dadweynaha ku nool xaafadda Islii laba su'aalood weeye labada su'aalood waxay u kala dhacayaan sida tan midda koowaad qof ku jecel iyo qof aad jeceshahay keebaa noloshaada siin lahayd qof jecel ayaan siin lahaa noloshayda maxaa sababtoo ah qofkan uu jecel yahay naftiis wax walba uu huraya laakiin qofkan ana jecel biri waxa laga yaabaa qof kale inuu iga raaco laakiin qofkan uu jecel yahay qof kale iga ma raacayo halkaas aan uga soo raacay su'aasha okay su'aasha labaad maamo indhoola dhagoolana ay baanin qabay ay ninkii qabay kadib waa uu dhintay maamada waxa la rabaa in loo sheego in ninkeedu uu dhintay sidee ugu sheegi waxaan u sheegi lahaa dib ma lahan aniga aqal gali lahayn Allah ninka iyada markaas mugtay man maqlayse ninkaadaan waa nagtaana baqoy easy way ugu horreyn magacaaga magacayga Sihaam Abdirashiid Sihaam Abdirashiid ugu horreyn ku soo dhawo barnaamijka kulanka kaarshe waana kaga mahad celinayna waqtiga qaaliga inaad siiso waa ku dhawahay Sihaam galab wanaagsan wanaagsan waxa jirto su'aalo aan weydiinayno dadyowga Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii su'aalahaas oo ah laba su'aalood su'aasha koowaad waxa ay leedahay Sihaam qof aad jeceshahay iyo qof adiga ku jecel keebaa nolosha la wadaagi lahayd qof aan jecelahay sabab
أنا وجعل سماهن لكن قف يجعلنا والله مو ذيك واتاي سؤال حigta waxa ay leedahay islaan indhoola ah dhagoolana ah waa indhoolo waana dhagoolo nin baa qabay ninkii qabay safar buu aaday wuu dhintay ninkii baa dhintay meel socotaa waxaan ku yiri islaanta wax ma maqasho waxna ma aragto nin indhoolo ah oo qabay baa dhintay sidee islaanta ugu sheegi lahayd inuu ninka dhintay دقولة وين دولة وا دقولة وين دولة وا والله سأقول شيء بقرنا إن دولة دقولة ما تلمامي لهاد وحبا شيء لا إن دولة وا بي دقولة واي سواء وشيء جاي سيده وحنا وشكتال ربا قاسس ما قاسي كده زاش سبعي اسكو طيب لكن هذا إن دولة ما يسواش وبعدك تاي وبعدك تاي هذا سوا كده كينغ عبدول lagu magacaabo Abdullah Dair okay King Abdul waa King King boqorta ila boqorre waa taa King xaafadda Isliya ku nooshahay kalilab su'aalaha jirtaan weydiinayna dad ku nool xaafadda Isliya sax su'aashaas waxa kamid ah midda koowaad bando waa saaran dalkan Kenya kalilab habeenkii baa kamid ah fahansana yaha la soo xareeyay wax ka xun ma laha wallahi waxa ugu horeeyay ee habeenkii aad u xiistay inaad samayso awla sameeyay maxaa kamid ah wallahi waxyaabo badan jiro asxaabteena kulmi jirnay maqaayadaas ku ma jirnay teem badan xataa aroosana lagu wixii tagi jirnay gaar ahaan anaka youtuber ana teem naseex soo booqo jirnay waxaas dhanaa waynay nolosha dhanaa nagu soo yaraatay bro infaanti ya marka waxa dhila ilaaha naga qabto cudurkan waana la fur doona insha Allah waqtigan marka la furo bro oo la yiraahdo habeenkii fasaxati kalilab waxa ugu horeeya sameeyay wallahi waxyaabo badan ay qorsheysan saaxib saxaabteeda ay kulmi lahaay ya gabar walaashii arooskeeda baaqda xataa inaa ka soo muuqda ogolahay markii la tuuga inuu hal mar noo furo saaxib kalilab waa tahay su'aasha labaad waxa ay leedahay maama indhoolo ah dhagoolada ah ninkeeda safar aaday kadib waa u dhintay sax ninkii la rabaa in loo sheego maamada ninkii inuu dhintay sidee ugu sheegi lahayd wallahi horta maamada anima ila dhalatay يا ميلاد المانو أسوق قابلة اسمي كالي أدي لها إلى أسك بني مقطع بالك أوكي نشاهد أن أجوهرين كسودو كلن ككارش ودوها thank you وكجمع هاد علينا وقتها إن نسيسو مركا حكتا واحد جرت لبس سؤالات عن وديننا dadka ku nool xaafadda Isliin su'aasha koowaad waxa ay leedahay qof aad jeceshahay qof ku jecel keebaan noloshaada ku aamin leh horta qof aan jeclay mid aan jecel sama waxa qaadan laakiin aan jecel because kan aan jecel oo iga tiikra mugdo mar walba adiga jeceshahay adiga naftaadii ah because waxa ugu arday xataa jecelka dhankayga bisay mugdo hasay ma jecelo qofkan bilaandaga ma qasbi kari mar walba iga tiikra laakiin kan jecel adiga naftaada ka leedahay way jecel ma jecel ani ayada saas ay tahay macnaha way iga keensan karaa jecelka وانا جعلان كرا وانا لا جوي كرا صورة قلب من قناة سوى كان صورة قلب الله يبلا سؤال شو أقول سؤال زين سؤال شو لو قد بنا ماما إن دولار نقولنا من كذي بعد أنت سلي وش يقول من كذي نقول إن دولار وايد نقول وايد بابا دادا ماركة وتتابع حد لا تتاشك فانسيلانو سان أدقى قوادين تاي هابكي أدقى قوادين تاي مالا مقلو هذا والله بلا تلا أحمد راشد من جوجل كرا وتتابع سؤال سؤال هذا قواسة سؤال ما نشك أحمد سياد عبد الله أحمد سياد عبد الله وان كاجم هذا علينا كنا صدوا برامج كلن ككارش هذا codkaaga adoo sare u qaadaya waxa jirta su'aalo aan weydiinayno dadka ku nool xaafadda Isliin su'aasha koowaad waxa ay leedahay maama indhoola ah dhagoolana ah odageedii baa safar aaday odagii safarka markuu aaday kadib waa dhintay maamadii indhoolaha ee dhagoolahan ee waxa la rabaa in loo sheego in odageeda uu dhintay
sidee ugu sheegi lahayd maadaama nin nabadoona aad tahay laguna xilsaartay in arrinkaa sheeg arrintaas waa arrin yani ka fiirsi u baahan ay qaadi lahayd qaabaysa marka qofka u fahansan maamada haddii adoo ninkii ayada qabay baa indhabeelay soo maaha maya indha ma laha ina ma laha iyada ninkii qabana waa dhintay iyadii baa la rabaa marka in loo sheego in ninkeedii uu dhintay indhana maadaama aysan qabin dhagana qabin sidee loogu sheegaya arrintaas uu yaraa wax culus tahay laakiin anigu waxaan dhihi lahaa islaantaas in gacanta lagu taabto gabadha iga boobtay taabashadu waa taabasho caadiya haa markii la tilmaam baa laga wadaa haa markaa taabato qof sida adoo ku taabtay camal bay la mid tahay kee marka loo marayaa sideese marka dee la taabto kalbe qofka soo toosayaa oo fadhiisanaya soo ma waa soo fadhiistaa haa dhigana maqanayna ma laha okay arrinta marka waxa ay go'laan anagu ugu adagtaa inta ma dhaafin karo maamo indhoola dhagoolana waa indhoolo waana dhagoolo dhagama qabto indhana ma qabto odageedii baa safarkii waa kadib odageeda waa tagay waa dhintay maamadii waa loo soo laabtay waxaa la rabaa inaad adiga u sheegto in maamadii ninkeeda uu dhintay sidee ugu sheegi lahayd wallaahi su'aal adag waaye af dhagoolka dilo ugu sheegi lahaa indha male haddii wax loo qori lahayn wax ma aragto hadee wax maqli lahaydna dhaga ma qabto wallaahi taabasha ugu sheegi lahaa taaban lahaa أنا ميت كذي لا وانت الناس قاعد صار لهم حن لها معني فيلم مشاو نجري لها سووا معني واسحنا معنا سحنا إنه ها إنها وسقف صلا إنها قعمة صار لها معني يا حريف كوجي تعمل أو قاعد يعمل ما كنت لا هذا هو هردال هذا خف هو سحنا سيد مدمن عمل سحنا إنه مدمن مركب صحراء أيضا كين لها مرنا اسكو دوبي لها نحس حسيت كفاس غير لها معني odayg waaji taamul waa tagay aywa ma santa axmed karsha faiz walaal ku soo dhawo kulanka waa kaga mahad celina waqtigaaga inaad is ku dhawaad baa ma santa faiz waxa jirta laba su'aalood aan weydiinayno dadku nool xaafadda isla su'aasha koowaad waxa ay leedahay qof adiga jeceshahay qofku jecel keebaan nolosha la wadaagay qofkii jecel waa loo jeedaa Soomaa qofkii jecel naftaadii waxa jecel maxaad uga carartay ani waxa jecel ma kula qofkii jecel baadi lahay mar walba ya waayo qofkaas mar walba waa ku dhow yaa moogtahay qofka kawaad adiga jeceshahay miyuu ka fogyaa kaasde waa iga fogyaa ana ceersani waxa laga yaabaa inuu asay iga sii cararey kana soo ceersani asay jecel marka inaa asaga isku mid kale kan baaniga u biilaha kaaka ana uma giila waa iska deeylaha qofka iga sii cararey waxay leedahay maamo indhoola dhagoolana waa indhoolo waana dhagool odaygeeda baa safaraad sidii ugu dhintay sidee maamada ugu sheegi lahayd in odaygeeda uu dhintay faraha looga sheegaya qofka dhagoolka waxa ma aragta waa rafaad wala dhib waay kale waa u taataaba lahaa si uu noqoto jirkeeda لكن ماذا كويدين كرير حيو ليه هاي روح دي سد لما دقائق سوما هدو انت كلا معناها كنس قانسيا ده ودنا مركو على صوودايا وين دولا لو دحay وين دولا وانا دغول waa soo waday gacmahana kama jarna la socotaas adiga lugaxana ma laa xubnaha qaybta inta kala ayaa maqan de marka kort keentid waxa leedahay qofka waa kor keenaysaa waa hadii la dooga xitaa waa kor keenaysaa imagine inuu qabri yahay inuu qabri caadi ma indoola dhagoolana waa indoola waana dhagool صح nin baa qabay ninkeedii baa dhintay sidee ugu sheegi lahayd maamada ninkeedii inuu dhintay والله دب واي لكن هيدا ندولو ما دغولنا واي هاي wax qoro hada wax qoro ma fahmi meel warka ma laha taas ma karnay isku day maskax ka shaqeysay xogaa ku soo celahay waa maamo indhoola dhagoolana hay ninkeedii baa dhintay ninkeeda haduu dhintay waxa la rabaa in loo sheego hay sidee ugu sheegi lahayd hada wax arkaynin waxna maqlaynin waxna ka kaleynaynin su'aashaas way wadagta boo qof kale igu gudbay sida daawada sida aan rajaynayo waxa weeye waad soo qosashay waqti qaalina waad soo qaadatay waxaana markaasi soo daawatay sida ay uga jawaabeen dadkii ku noolaa xaafadda Isli su'aalaha aan weydiiyay hadaba intaan maadaama aad soo daawanaysay adigu daawanaya waa kugu ceeb inaad daafto in aad share gareyso sidoo kale
like-ta iyo waliba subscribe-ka intaasoo ah dhiirigelinta aan berito kugu soo duubayo muuqaalka xiga ama barnaamijka xiga ee aan ku diyaarinayo intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waa walaalkiin Kaarsho idin leh amaana Allah